maanta waxaa inoo qabsoomay shirkii caadiga ah ee khamiislaha ahaa ee golaha wasiirada ee uu daadihinayay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka mudane xasan cali kheyre waxaana looga hadlay dhowr qodob oo ay ka mid tahay dardargelinta tirakoobka shaqaalaha rayidka ah ay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada soo jeedisay. waxaa kaloo looga hadlay dardargelinta arrimaha hawada Soomaaliyeed aan la soo wareegnay mar hore maamul ahaan nooga xiran oo loo dardargelin lahaa. waxaa kaloo laga hadlay geedi socodka deyn cafiska oo ra-iisul wasaaraha ay tahay waxyaalaha ugu waaweyn oo uu jecel yahay inay hirgalaan. waxaa kaloo looga hadlay iskaashiga ganacsiga bari iyo koonfurta Afrika qaybgelidiisa ama COMESA mid loo yiraahdo wasaaradda ganacsiga soo jeedisay. aan ku horeyno ra-iisul wasaaraha wuxuu arrintiisa ku furay arrintii ku saabsanay road mapka ama tubaha u degsan dardargelinta mawduucyada ee dowladda ay qiimeynayso uu ra-iisul wasaaraha aad u daneynayay kuna dhiirigeliya wasiirada inay si aad ugu shaqeeyaan maadaama hadda ay 2 sano nolol dhamaatay ku dhawaad December marka la gaaro in wasaarad walbaba howlihii loogu talagalay ay 50% inay soo dhameystiraan ay tahay mid uu ra-iisul wasaaraha kula xisaabtami doono wasiirada iyo wasaaradaha arrimahaas qaaday. kadib waxaa xog yar naga siiyey wasiirka shaqada iyo shaqaalaha arrimaha ku saabsan tirakoobka shaqaalaha oo socday oo soo dhameystirnay haddana la bilaabi doono qaybteedii labaad oo ah in la xaqiijiyo dadka dowladda u shaqeeya biometrics waxay yiraahdaan sida u wada geli lahaayeen. waa arrin muhiim ah oo kana mid ah deyn cafiska geedi socodka deyn cafiska oo dowladda Soomaaliyeed muhiimad weyn u leh. taasna waxaa lagu qorsheeyay inuu wasiirka shaqada iyo shaqaalaha jadwal la soo sameeyo asagoo kaashanaya wasaaradda maaliyadda iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha inay wasaaradahoo dhan ay shaqaalahooda mar labaad la geliyo tirikoob saxa si loo hubiyo mushaaraadka oo ah qaybta ugu weyn oo dowladda ay bixiso maanta qarash ahaan in la hubiyo. tii kaloo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyadana way barbar socotaa oo laga shaqeynayaa iyadana. kadib waxaan ka wada hadalnay ra-iisul wasaaraha ayaa aad ugu dheeraaday arrimaha geedi socodka deyn cafiska oo bisha December 1 iyo 6 ay Soomaaliya ay kala qaybgali doonto bangiga adduunka iyo IMF-ta. marka waxaa muhiim ah in qaybaha nooga dhiman ama wasaarad ahaan kaga aadan in la soo dhameystiro. ra-iisul wasaarahan wuxuu aad ugu qiimeeyay wasaaradaha ay ku haarsan tahay howlo qorshe howleedyo yar ay ka mid tahay wasaaradda boostada iyo wasaaradda qorsheynta iyo wasaarad kale inay soo dhameystiraan sida ugu degdegsiyaha badan lana shaqeeyaan wasaaradda maaliyadda si ay wasaaradda maaliyadda u tagto shirkaasi ayadoo ku kalsoon in howlihii laga sugayo dowladda Soomaaliyeed la soo dhameystiray. kadib waxaa ka wada hadalnay COMESA uu ra-iisul wasaaraha soo saxiixay bishii July iskaashiga ganacsiga ee bariga iyo koonfurta Afrika oo dood dheer la geliyey faa'iidada ay u leedahay Soomaaliya ka qaybgelideeda iyo waxyaalaha aan ka filanayno inay annaga ay dhib noo keensan karto. wasiirada dood weyn ayay geliyeen waxaan lagu heshiiyey in dib lagu soo sameeyo baalaan degid dheeraadna lagu soo sameeyo arrimaha ku saabsan ka qaybgelidda COMESA aan hore u soo siixin. marka shirka wuxuu ku dhacay si wadareed ah oo wasiirada aad ugu soo qaybgaleen. waxaa jirtay 2 mawduuc oo kale oo rabnaa maanta ka wada hadalno oo ku saabsan iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya wasaaradda arrimaha dibadda soo diyaarisay oo inoo suurtageli weysay maadaama uu shir kale iyo dood ay nagu dheeraatay. hay'adda noo maamusha hawada adduunka ICAO ayaa iyadana ka mid ahayd qodobada laga hadlay iyadoo la ogyahay inay Soomaaliya la soo wareegtay muddo ku siman 20 sano iyo ka badan hawadeed aan la soo wareegnay. hadda waxaa jira qarashyo ay qaban jirtay hay'addaas oo Soomaaliya leedahay u baahan in dib ay Soomaaliya wasaaradda ula xisaabtanto. wasiirku markuu maanta noo soo bandhigay qorshe howleedkiisa ku aadan sidii loo soo hubin lahaa lacagahaas inay qasnadaha dowladda ku soo dhacdo haddii la raalkiyo insha Allah.